وبرتادو يوتيوب ككل لنا هي بن قرش لهانتي بكسو دواده تضواد maalmooda ayuu nabigeenu sheegay kaleey salaatu wasalaam inay tahay maalinta ugu fadli badan maalinta jumcada ummadihii naga horeeyana ummad walba maalin baa loo doortay oo ay shaqada adduunyada ay ka nasanayeen oo cibaadada ay badsan jireen nasaaraduna axad ay lahaayeen yahuuduna sabtaday lahaayeen laakiin innaka muslim ka muslimaan ilaahay jalla wa ala waxa uu noo doortay yawmul jum'ah wa sayyidul ayyam waana maalinta maalmaheena ugu fadli badan weeyaan oo nabigeenu kaleey salaatu wasalaam xadiis saxiix uu ku yiri aan maalmaheena si maalinta ugu fadli badan buu nabigu waa jumcada maalinta jumcadu maalmaha kale waxay kaga fadli badan tahay waa shan khasladood khaslada koobaad wuxuu nabigu sheegay inay tahay maalinkaasi maalinkii nabi aadan la abuuray kaleey salaam jumca يوم الجمعة نبي آدم الله أبور عليه السلام خلائق دا أبور كودنا أساق أبور دبايا بالليل وسما دا أبور كيدا يا كهوريي أرلا دا أبور كيدا يا هوريي بورها أبور كودا يا هوريي جمادات كي نرتنا الدنيا كوتا الله يوحي قيد بني آدم كوعي منافع صدان ودن أيا كهوريس آدم أبور كيسا حيا لبني آدم كو baahi faran badan buu leeyahay baahidiisa markii adduunka lagu dhameystiray wuxuu u baahnaa oo dhan dhulkii cirkii cadcaadii biyihii dhirtii qudaartii xayawaankii bahaayimkii hawadii xaajaadkiisii oo dhan markii la abuuray ayaa nabi aadan la abuuray kaleey salaam yawmal jum'ah jum'a ayaa galinkii dambe ruuxda lagu afuufay khaslada labaad ee jumcadu maalmaha kaga fadli badan tahay buu nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam maalin jumcana waa la galiyay jannada jannadaas culimadu qaar waxay yiraahdaan ma jannatul khuld ba isa janna waxay ahayd nabi aadam kaleey salaam kaliya loogu tala galay oo isaga lagu ikhtibaarayay qolo waxay yiraahdaan waa janna isaga lagu ikhtibaarayo isaga gaar u ahayd waayo jannatul khuld haday tahay bay culimada qaar leeyihiin jannatul khuld hadii mar la galo laga ma soo baxay bay leeyihiin la yamassuhum fiha nasab wama hum minha bimukhrajin ba ilaahay ahlul jannah jannada hadii ay galaan jannada ay galeen dhexdeeda wax tacab oo ku soo gaadhaya ma jirta ba ilaahay yiri kuwa jannada ka soo baxana maahin ba ilaahay yiri allah ina galiyo jannadaas marka culimada qaar waxay leeyihiin janna baan ma jirtee jannadu taasay ahayd baartii runtay ahayd walaakin ilaahay waa sidoo doonayay weeyaano aadam jannada baa lagu dhex ikhtibaaray halum majar midka doonay baa noqoto jannadaasi quraanka waxa uu noo cadeynayaa in jannada nabi aadan lagaga soo saaray قف جنة دحديد وكقل إياها ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين بإلى حيكول جنة هؤدوانين هذه حاسكادو حداد جيتك أودواتان نبى لقول جيتك حداد أودواتان جيتك جنة أن يقدقنا إن تكون دحونتان حداد أودواتان كو الظالمين تنفتوا ضد الظلمية بعد كم من ضغون إنسان بإلى حيكول marka nabi aadam kaleey salaam maalin jumca ayaa la abuuray maalin jumcaana jannada waa la galiyay maalin jumcaana jannada waa laga soo saaray oo arlada ayaa la keenay maalin jumcana saacada qiyaamada dhici doonta buu nabigu kaleey salaatu wasalaam maalin jumca hatta subax jumca ayaa cadcaadu ka soo noqon doontaan maaragtaan xagga maqribka ka soo noqon doonta idaalika xayawaanka oo dhan galabta khamiiseed marka cadcaadu ay sii dhacaysaba la yiri habeenka cabsi ayay ku bariyaan cabsi ayagoo ka cabsi qaba waa bariga dambe inay noqon karto maaragtaan maalinta saacada qiyaamadu ay dhacaysay